السلام عليكم صاحبة كحران كانال كيغا تيجر حسن waxaan maanta halkan idinku soo gudbin doonaa mowduuc aad iyo aad u xiiso badan waxaa jira dad aad u fara badan kuwaas oo la dhibaataysan in ay mar walba ka fikiraan waxyaabihii ay soo dhaafeen sidoo kale ka walwalaan waxyaabaha mustaqbalka dhici doono haddaba haddii aad dadkaas ka mid tahay waxaan maanta halkan kugu wadaagi doonaa qisada wiil lagu magacaabo Marco oo ku nool dalka India taasoo xal buuxda u noqon doonta arrinkii aan kaga soo hadlay bilowga muuqaalka haddaba haddaadan igaranin magacaygu waa Xasan Cabdulaahi waxaan ahay baradhiga luqadda Ingiriiska hab online ah waxaan ku soo gudbiyaa YouTube-ka magaciisu yahay way arag academy طبعا badankiina waad garanaysaan baan filayaa sidoo kale waxaan dhigaa online courses buugaag duubana ardayda ayaan u soo gudbiyaa haddaba kanalkan waxaan ugu talagalay inaan ku soo gudbiyo waxyaabaha la xiriira horumarinta nafta iyo shakhsiyadda qofka bini'aadamka haddaba ku soo dhawaada mowduucayna maanta xaafad yar oo ay ku hareeraysan yihiin buuro kuna taala magaalada Mumbai ee dalka India ayaa waxa ku noolaa nin dhalinyaro ah da'diisuna ay tahay 24 jir lagu magacaabo Marco wuxuu ahaa wiil aad u murugo badan fikir badan maalintii oo dhan waxa maskaxdiisa ku soo dhacda boqolaal fikradood oo kala duwan wuxuu aad uga murugan jiray waxyaabihii uu soo dhaafay sidoo kale wuxuu ka walwali jiray mustaqbalkiisa fikirkii tirada badnaa iyo walwalkii joogtada ahaa Marcos maskaxdiisa buuq fara badan ayuu ku furtay deganaan ma uusan dareemi jirin noloshiisu waxay ahayd mid ku dhisan murugo ciriiri hurdo la'aan cunto la'aan iyo nasiina la'aan maalin maalmaha ka mid ah isagoo meel maqaaxiya fadhiya ayaa waxaa loo sheegay inuu jiro nin oday ah oo ku nool tuulada banaankeeda aadna ugu takhasusay cilmu nafsiga iyo daweynta dadka la dhibaataysan ka fikirida wixii tagay iyo ka walwalka waxa soo socda sidoo kale odaygaasi wuxuu caawiyay dad fara badan oo la dhibaataysnaa arrinkan Marco aad ayuu ugu farxay markii loo sheegay in ninkaasi odayga ahi uu ka caawin karo dib u helidda noloshiisii deganeed subaxii markii uu waagii u baryay ayuu boorsadiisii iyo biyihiisii qaatay wuxuuna go'aansaday in uu la kulmo ninkaas odayga ah saacado badan oo safar iyo daal tiro badan ah Marco wuxuu soo gaaray xaafadii uu ku noolaa ninkii odayga ahaa guri yar oo dhir cagaaran aadna u qurux badan ay ku hareeraysan tahay hortiisana uu fadhiyo ninkii odayga ahaa ayuu soo ag istaagay salaan iyo iswaraysi kadib Marco wuxuu odaygii ku yiri waxaan dareemayaa deganaan la'aan maskaxda ayaan aad uga daalay fikir tiro badan ayaa idilay ma i caawin kartaa odaygii ayaa si degan ugu jawaabay kuna yiri ma waxaad doonaysaa deganaan maskaxeed wuxuu u raaciyay shaqo yar ayaan ku dirayaa Marco ayaa ku jawaabay diyaar ayaan u ahay shaqo walba oo aad dirto inaan qabto odaygii wuxuu sameeyay galaas ayuu biyo ku soo buuxiyay galaaska space dhan ma uusan u reebin haddii aad wax yar si qaloox u qaado yani wax yar si qalooc ah hadad u qaado waxa laga yaabaa in biyaha haaf kamid uu ka daato galaaskii biyaha ka buuxeen ayuu u dhiibay Marco wuxuuna ku yiri galaaskan qaad waxaad aadaa cirifka ugu dambeeya ee xaafadan kadibna ila soo laabo laakiin mid xusuusnaa ayaa lagu yiri waa inaad biyahan sida aan kuugu dhiibay aad igu soo celisaa xitaa hal dhibic yeysan ka daadan Marco wuu la yaabay arrinkii laakiin wuxuu doonayay inuu shaqada qabto oo waliba uu u qabto sidiisa ugu fiican wana aqbalay xujadii loo diray wuxuu qaaday galaaskii wuxuuna si taxaddar leh u bilaabay socodkiisii wadooyinku waxay ahaayeen kuwa ciriiri ah aadna u mashquul badan dadka qaarkiis way ordayaan qaarna si xawli ah ay u socdaan dukaanlayaashu waxay u yeerayaan macaamiisha wadada maraysa eeyaha iyo bisadaha iyo xayawaanada kale ee jooga wadooyinka ayaa iyaguna qaylinaya laakiin ninkii Marco ahay xitaa ma uusan milicsan yani ma uusan fiirin waxa soo dhan indhihiisu waxay kaliya hayeen galaaskii si uu isaga ilaaliyo in dhibic biyo ah ay dhulka kaga dhacdo wuxuu u socday si tartiib ah talaab isagoo muujinaya taxaddar fara badan dadku way soo eegayeen iyagoo la yaaban laakiin isagu war uma bahayo inay dad soo eegayaan iyo in kale ugu dambeyn saacado dadaal taxaddar iyo ilaalin fara badan Marco ayaa dib ugu soo laabtay gurigii uu ku sugnaa ninkii odayga ahaa isagoo wada galaaskii biyaha ahaa wuxuuna ku yiri adeer eeg waan sameeyay xujadii waliba dhibic biyo ah igama soo daadan odaygii ayaa intuu madaxa jeljelay ayuu isagoo dhoola cadeynaya ku yiri waa arrin wanaagsan wiilow laakiin su'aal ayaan ku weydiinayaa taasoo ah ma aragtay caruurtii ku ciyaaraysay wadooyinka dhinacyadooda xayawaanadii qaylinay
dukaanlayaashii customerskooda u yeerayay, ardaydii iskuulaadka u socotay, maamooyinkii shaqada u kala hayay. Marco ayaa intuu yaabay ku jawaabay, maya mudane, ma arkin, xitaa maba maqleen waxaas aad sheegayso. Maxaa yeelay waxaan diiradda ku hayay sidii aan hadafkayga oo ah inaan biyuhu iga daadan uga miro dhalin lahaa. Odaygii ayaa intuu qoslay ku yiri, that's the secret. Wataas sirtu. Waxaa jira waxyaabo kugu dhex jira laakiin aadan ogeyn. Marka maskaxdaadu ay ka fikirto waqtiga aad nooshahay, maskaxdaadu jaanis uma heli doonto in ay ka baqdo mustaqbalka iyo in ay ka walwasho wixii ay soo martay. Fiiri qisada Marco, wuxuu diiradda ku hayay galaaska biyaha ah, kama uusan walwalayn wixii uu soo maray, kama uusan baqayn mustaqbalka, kuma uusan mashquulin waxyaabaha hareerihiisa ka socda. Saameyn kuma aysan yeelan maskaxdiisa waxyaabaha dadka kale ay ka aaminsan yihiin. Kaliya diiraddiisu waxay ahayd inuu hadafkiisa ka dhabeeyo, waa uuna ka dhabeeyay. Ugu dambayn, Marco wuu fahmay ciladii haysatay, wuuna u mahad celiyay ninkii odayga ahaa. Subaxii dambe ayuu dib ugu laabtay tuuladiisii, laakiin markan waa uu ka duwan yahay ninkii uu shalay ahaa, isagoo isbedelay, sidoo kalena dareemaya deganaan iyo xasilooni ayuu wadada ku dhacay. Haddii aad ka heshay sheekadan, please like garay muuqaalka si uu meel dheer u gaaro. Hana iloobin inaad subscribe garayso kanaalkayga Tijar Xasan si aad ula socoto sheekooyinka xiisaha leh iyo tibiska la xiriira hababka ugu fudud ee loo barto luqad cusub, sida nolosha loo bedelo iyo horumarinta nafta. Guuleyso.